waagaag iyadoo shalay ay ahayd 18 May maalintii lagu dhawaaqay go'aansataaga Jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland waxaa Hargeysa laga soo saaray warqad ay saxiixeen aqoon-yahano tobanaan qof gaaraya oo kala duwan waxa ay nuxurka warqadaasi ahayd baaq shacab waxayna ku baaqayaan in la ilaaliyo xuquuqaha asaasiga iyo ujeedooyinka loo aasaasay Somaliland iyo xuquuqaha iyo hufnaanta maamulka Gulad Axmed Jaamac waa garyaqaan hore u ahaa madaxa xarunta xuquuqda bini'aadanka ee Somaliland Hargeysa ayuu iskaabka toos ugu jira Gulad soo dhawow warqadan aad shala soo saarteen aad baaq shacab ugu yeerteen erebixinta halkee ka keenteen oo yaa idin xil saaray inaad shacabka adinku matashaan aad buu mahadsan tahay waraaqda baaqa shacab ma ahayn waraaq leeyahay dadka Somaliland lagu matalaa wuxuu ahaa waraaq cidii saxeexday iyagu aragtidooda waxay u arkayeen inay ku wanaagsan tahay Somaliland ay ku soo gudbiyeen haddana boqolaal qof iyo kunaan qof oo Somaliland kamid ah oo dad caani ku jiraan baabaraha bulshada ku taageeray ujeedadana wax kale ma aha in dad isku aragti noqdo gobolada Somaliland oo dhan jooga ayaa waxay la jeclada Somaliland u arkayeen la wadaagay dawladda Somaliland si la isu xisaabiyo 29 sano kadib Somaliland halka ay marayso waa gartay maxaa ku jiray oo aad doonayseen inaad dawladda kula xisaabtantaan oo ku weydiisaan warqada dawladda Somaliland waxaan kula xisaabtamaynay in 1991kii sababta Somaliland loogu dhawaaqay lagu cadeeyay dastuurka Somaliland 2001 la ansixiyay taasoo ay nidaamka dawladeed u noqdo mid cadaalad sinaan maamul baaha xuquuqda aadanaha oo la ilaaliyo iyo awoodaha dawladda oo kala sooco iyo gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan oo nidaamkooda gaaro si cadaalad ah in la helo kolka waxaan u arkaynay in arrimahaas aan sidoodii loo dhaqan gelinay qaybo kamid ah ama qaybo badan oo kamid ah lagu xadgudbay sidaas daraadeed waxaan dawladda ugu yeerin inay ku soo noqoto dastuurka inay ku soo noqoto wixii shacabka ku heshiiyay in la xoojiyo sinaanta iyo cadaaladda in la ogsoonaado go'aan istaaga ku dhawaaqidiisu inaanay ahayn oo kaliya in dawlad la hele ee ujeedadu ahayd in la helo dawlad cadaalad iyo sinaan iyo maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraabakiilka in la helo in ujeedadu tahay kolka taasaan isku baraarujinay matalan haddaan tusaale ku siiyo 1991kii dadkii dhashay wixii ka dambeeyay oo 29 jir wixii ka yarahay weligood fursad u helin baarlamaan matalan inay codeeyaan wada ogtahay doorashooyinkii baarlamaanka la qaban kari lahayahay dadka dalka ugu badan oo dadkii waaga dhashay kolka baraarujin bay ahayd tala ahayd tusmay ahayd waxay ahayd kolka inaan dawladda tusno in wadada lagu socdaan aanay ahayn tii loogu talagalay dalkan in lagu maamulo sidaas daraadeed ay u baahan tahay dawladdu inay dastuurka dib ugu noqoto waa gartay maalinta munaasabada dabaaldega 18 May maxaad cabasho ugu soo beegteen waa arrin aad iyo aad muhiim ah 29 jirka Somaliland u dabaaldegiisu waa in wax la isweydiiyo in la isxisaabtamo in la dabaaldego haddana la yiraahdo halkeeba inuu ku soconaa wadada YouTube aynu haynaama yahay kuwii aynu ku heshiinay 18 May 1990 annaga heesaha waxa nagala muhiimsan in la isxisaabiyo waxa nagala muhiimsan anagu shacab ahaan isxisaabino dawladeeda la xisaabtano ujeedaduna waxay tahay in soddon guurada Somaliland ee sanadka dambe ay noqoto mid ka wanaagsan maanta taasina waxa ku iman kartaa oo kaliya islaam iyo in la helo dawladnimo ka wanaagsan tan oo aan qabno annagu inay yihiin waxa shacabka Somaliland ku heshiiyeen 1991 dadka qaar waxay idin haystaan inaad tihiin garab kale oo mucaarad ah oo dawladda un faraha ku fiiqfiiqay arrintaas maxaad uga jawaabi lahayd dad aad u kala duwan gobolooyinka dalka dhan jooga aan soo qoonin qaarkood ay xisbiyada kala duwan ee xukuumadda iyo mucaaradka taageeraan qaarkood aan xisbiyada ku jirin ujeedadana midaysan waa hal mid kaliya Somaliland wanaagsan baan rabnaa Somaliland dimuqraadiya cadaalada sinaan leh oo ammaan oo wanaagsan oo waartaan rabnaa taana waxaan ku heli karaa kaliya shacab ahaan anagoon xisbi eegaynin deegaanna eegaynin aan codkayga sheegano oo ninaahno dastuurka hala raaco dastuurka waxa ku qorana hala raaco sidaas daraadeed mucaarad ma nihin waxaanu nahay ummad dareen wadaagaasna oo keenay inaan baaq shacab soo jeedo garyaqaan Gulad Jaamac aad iyo aad u mahadsantahay